kulanti wacan oo wanaagsan halkan waa telefishinka S24 ku soo dhawaada daawadayaal wararka caalamka oo si toos ah idinkaga imaanaya xarunta aynu ku leenahay magaalada Muqdisho. Qodobada aad ku daawan doontaana waxaa ka mid noqon doona kumanaan shacab ah oo reer Shangaani ah ayaa maanta si rasmi ah loogu furay ololaha qaran ee isdiiwaangelinta codbixiyaasha taa oo maanta si rasmi ah ugu bilaabatay halkan oo ah degmada Shangaani. Shacabka ayaa wajigooda waxaa laga dheehan karay farxad iyo sidoo kale ku qanacsan yihiin inay codkooda ku cilbaxaan. qaybo ka mid ah shacabkii qaatay kaararka codbixinta oo dareenkooda farxadan la wadaagay ayaa fariin gaar ah u diray mucaaradka iyo sidoo kale shakhsiyaadka kale ee diidan doorashada qof iyo codka sidoo kalena waxay cadeeyeen inay diyaar u yihiin doorashada golaha deegaanka. maanta waa u jeedin Soomaali weynay Soomaali baan la hadlayaa saako dhawaa hadlaynay war waa daldalaynay hadda Soomaali baan la hadlayaa maanta gacanta waxaan ku haynaa waa kaarkii doorashooyinka qofka iyo codka ah saako dhamba qorraxda u taagnay waa u jeedaan qorraxda aad iyo aad maanta waa maalin taariikhi ah waa maalin lama ilaawaana waa maalin mustaqbalka ilmaheena u horseedayno inaan aan ku hogaamino aniga magacayga Cabdiraxmaan Cilmi Cabdi Buruki baa la yiraahdaa nabadoon baan ahay beel dhan aan nabadoon guud u ahay waxaan ku guubaabinhayaa oo dadka u sheegayaa in kaarka la qaato inay qofkay rabaan doontaan muddo badan yaa waxaan u soo xuleynay xildhibaan ay sarraali ka ahayn oo la lahaa waadna gadatayna la lahaa maanta waxaan rabnaa inay xoroobaan oo codkooda ku cilbaxaan annaguna aan eedoodii ay naga harto waxaan idinka codsanaynaa kaarkiina qaata doorashada qofka iyo codka aada habeen dhawaada isoo wacday waxay yiraahdeen doorashada ma ka qayb galay waan ka qayb galahaan doorasho cod nin iyo cod haday noqoto ninka dalka badbaadiyo oo maatada badbaadiyo oo rayidka badbaadiyo oo ilmaha badbaadiyo aan taageeraan kii ilaahayna ahwa nasiibkiisa noqoto habal dhihma laakiin ninka dalka badbaadiyo oo shacabka badbaadiyo aan taageerahay nin kaloo la taageerayo ma jirto dawlad caadilana Allah dhaliyo hormo codaysa duliga oo coday Maxamed Siyaad Barran ka imidane codaas xaway laan loo codeeyay ananka waxaan rabnaa nin daacad ah oo dalka iyo diinta iyo islaamnimada ku dhaqmay aan rabnaa adinkoo hadalka qaloocina ananka wiilala duurka naga jira ciidamada dagaalamaya qaaraan dhalnay waa inay haday dhaawacmaan hiil iyo hooba la garab istaago oo ciidamadana la darjiyo hadda waraqada gacanta ku wada maxay tahay cod nin iyo cod waay aad ku diiwaan gelisay marka magacaaga waxa waaye Faadumo Sheekh Cabdi Sayyid Abdulle deganta degmada Shangaani aad deganta maanta qaadato sawirkaaga miya أمي سوري شانغلاني أمي سوري شانلada miraaya daara ay xaway Shangaani أمي tahay cod bixiye maanta kadib kaarkaaga gacanta ku wata dareenkaaga ka hor wallahi dareenkayga aad ba ii farxad gelisay doorasho qof iyo cod ah oo loo safanayo oo la qaadanayo waxa muuqata horumarka dalka iyo dadkuba ay gaareen hormo codaysay aniga waxaan ku soo codeeyay Hargeysa xisbiga u cudbaan ku jiray marka doorashadu si sharaf leh u dhacday marka dadka waxa la rabaa degmooyinka inta loogu tago in la wacdi geliyo oo loo sheego wuxuu yahay doorashada waxay tahay micnaha waa inay fahmaan waxaana sabab u ah dadkii qaar baan garanayn doorashadu waxay tahay iyo meel ay u socoto inay hebel baynu codeynayna bay oranayaan laakiin anigu waxaan ku dhiiri gelin lahaa bulshada magaalada Muqdisho ku nool in ay doortaan ninka wax u qabanaya ee kartida leh ee bulshada hoos u og maayir badan oo Hargeysa soo dooratay maanta kaarka codbixinta ayaa qaadatay oo golaha deegaanka xamar ah bal farqiga u dhaxeeya kaarkan iyo kan Hargeysa bal ma waran marka u horeysa kan oo kala lagu siinayaa markii dambana ID kaarka saxa ah ee aad ku codeynaysa ayaa lagu siinaa marka si sharaf leh u dhacday
dadkuna markii hore loo wacdi geliyo loo sheegay inay doorashadu tahay qof iyo cod qof walibana ikhtiyaar leeyahay hana laga fekeraa la yiri mid baa loo raaciyay oo ah ninka wax idii qabanaya doorta walada xamar joogta kaarkii aad qaadatay kii Hargeysa aad ka qaadatay shacabka inta dhooban iyo kuwii aad arki jirtay Hargeysa ku soo baxay si maayirku u doortaan waxa farqi u dhexeeya mise kula muuqata ku hadda maanta u jeedin kuwa shal arki jirtay horta anigu isma lahayn muqdisho doorashay dadku u soo istaagi doonaan laakiin saaka 7 barkii baan imid aad baan ugu faraxsanahay siday bulshadii guriyahoodii ay uga soo baxeen iyagoo soo baxa aan la oran qof waliba qorraxdaas uu taagan yahay saaka 7 barkii 7 qaar baa yimi xitaa sidii bay u taagan yihiin waxayna diyaar u yihiin inay doorashada u istaagaan oo qofkii degmadan maamuli lahaa ee kartida lahaa ee bulshada hoos u og maxaan idhaahdaa ay shaqada yaqaana ayay diyaar u yihiin inay soo doortaan doorashada ugu dambeysay Hargeysa aad xaadirto tay ahayd maxsuusta sanadkii sanadkaas wallahi ma xasuusto أعوذ بالله حمر وأكون شيء تجلس لي أهيد أن تجي أو أن لا كل ما دورشة وأنا قلي هي أنا عديسو حقي يوسف ويجا قناد ما أنا مركان مقلي مقدشة عدين باكدي عدون تي دورشة أنا كسيجارة أي قصيصي وأنا كفر حي والله وحالك إيجا مقطع مقدشة إني إسبدل سميسي أو ما أنت اللي يسكر رأسي هي حق وناجع أو أي نقطة ما تقرقي يستلكي يستبيعي يا إني هبل في Hargeysa ka dhacday iyo tan boosema leedahay سام نقول كرانو حمر dhibaatooyin waaweyn ay soo mareen waxa weeye dadkii dhalinyaradii maskaxdoodii way rogan tahay laakiin ilaahay waxaan ka baryayaa in ay hal dhinac isu raacdo oo ilaahay wanaaga u waafajiyo imika anigu dhalinyaro badan oo arko wareysi la yeeshay waxay yiraahdeen waa ku faraxsanahay doorashada qof iyo cod marka waa wax lagu farxo waa soo dhaweynaa laakiin wacdi gelin degmooyinka ka sameeya halaga sameeyo si ay u fahmaan doorashadu waxay tahay 56 sano kadib waa markii ugu horeysay shacab Soomaaliyeed ay qaataan kaarka cod bixinta iyagoo u diyaar garoobaya doorashada golaha deegaanka oo la filayo bisha 6aad ee ugu soo aadan soddonkeeda inay ka bilaabato magaalada caasimadda ah Muqdisho taas oo golaha deegaanka doorashada bilaabanayso Ismaaciil Ibrahim Xasan Muqdisho wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho ku qabatay munaasabad looga hadlayay mustaqbalka xoolo raacatada Soomaaliyeed kaasi oo ah hindise cusub oo loogu talagalay in lagu horumariyo xoolo raacatada sida in laga taageero inay helaan ilo biyo daaqa oo laga caawiyo suuqyada quudka iyo calafka iyo inay helaan tababaro ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Cabdisalaan Cabdi Cali wasiirka xanaanada xoolaha Xasan Xuseen Maxamed wasiirka beeraha Maxamed Cabdi Xayir Maareeye wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliya Bashiir Maxamed Jaamac agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa Maxamed Sanay Dalmar wasiirka ka socday maamul goboleedyada dalka xubno ka socday beesha caalamka iyo mas'uuliyiin kale ayaa ka qayb galay munaasabadan ugu horeyn wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Hirshabeelle Goodir ayaa ku hadlay afka wasiirada maamul goboleedyada waxaana uu sheegay in ay maamul goboleedyada muhiim u yahay barnaamijkani ka wasaarad ahaan wasaaradaha anoo ku hadlay magaca wasaaradaha xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee dowlad goboleedyada dalka mashruucan waxaan nahay annaga dadka ugu dhow ee xoolaha la jooga xoolo dhaqatada dadka ugu dhow aan nahay sababtoo ah nationalku xoolaha ma dhowo dhibaatada dhabta ah dadka ay taabanaysana waa annaga dadkeena dhaqaalihiisa ma aha noloshiisa waxay ku tiirsan tahay qoys kasta oo Soomaaliyeed ama magaalaha joogo ama miyaha joogay waxa weeye waxay ku tiirsan tahay xoolaha ku tiirsan tahay ama dhaqaale ahaan ama nolol ahaanba dhinaca kale wasiirka wasaaradda beeraha Maxamed Cabdi Xayir Maareeye wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliya Bashiir Maxamed Jaamac ayaa dhankooda ka hadlay madasha waxayna xuseen ahmiyad gaar ah in la siiyo xoolo raacatada in ay tahay muhiim marka aad iyo aad baan annaka wasaaradda beeraha iyo wasaaradda xanaanada xoolaha waa laba wasaaradood oo walaal ah isu shaqo dhow mas'uul ka ah inay dalkan
nidaamkiisa cunto iyo food security-giisa iyo dadka Soomaaliyeed noloshooda hagaajiyaan. waana ku faraxsannahay mashruucan ciddii wax ku tartay ciddii soo initiate garaysay design garaysay iyo donoriska nala fulin doona aad baan ugu faraxsan. waxaan anagu mas'uul ka nahay sidii muxuu ahaa xoolaha Soomaaliyeed oo aad ogtihiin lana sheegay maantana inuu presentation badan iyo ka daawanay noloshii iyo dhabarkii dalkii inay yihiin. waxaanu mas'uul ka nahay in aanu caalamku dhibka ka jira oo isbeddelka cimilada oo xoolahoodii dhibka adarteen u geystay macaluusha iyo daadadka marba ay si u dhimanayaan ayaanu mas'uul ka nahay wasaarad ahaan. wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Xuseen Maxamed ayaa sheegay inay xooluhu yihiin kuwo muhiim u ah dhaqaalaha iyo horumarka dalka. tarkan xoolaha markii laga hadlayo oo aan joogno Soomaaliya waxaad ogtihiin in dadka Soomaaliyeed dhaqaale ahaan iyo shaqo ahaanba ay ku tiirsan yihiin in badan 60% wax ka badan dhaqaalaha markii laga hadlayo gudaha Soomaaliya wuxuu ka soo xaroodaa ama oo noqda sektorkan xoolaha. marka maadaama uu yahay sektor aad iyo aad muhiim u ah dhaqaale badan dalka iyo shaqo abuur badan u sameeyo in aan gacmaha isqabsano aan iska kaashano sidii horumarintiisa looga shaqeyn lahaa. ugu dambeyn ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Cabdisalaan Cabdi Cali ayaa soo xiray munaasabadda. soo diyaariyeen wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa iyo FAO iyo dhammaan donorska halkan jooga ay ka soo qayb qaatay. waxaa fursad weyn ah in dadka Soomaaliyeed iyo dhaqaalaha Soomaaliyeed oo 45% GDP-giisa uu yahay xoolaha aan dhoofino in barnaamijkan uu qayb weyn ka qaadan doono iyada diilana u noqon doono horumarinta xoolaha. waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa dhammaan intii ka soo qayb qaadatay ee ugu horeyso wasaaradda iyo hay'adaha caalamiga ah ee halkan jooga. waxaan rajaynayaa inuu barnaamijkan noqdo barnaamij miro dhal weyn leh. wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowladda Hirshabelle ayaa degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe tababar ku qabatay. tababarkan ujeedkiisu ayaa ahaa amniga iyo nabadeynta iyagoo haweenka ay door weyn ka qaadan karaan nabadeynta iyo amniga. waxaana kulankan goobjoog ahaa wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowladda Hirshabelle Marwa Fawsiye Abuukar Maxamed iyo wasiir dowlaha wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowladda Hirshabelle Marwo Sacdiye Maxamed Nuur Sacdiye Burus. sidoo kale waxaa halkaa ku sugnaa haweenka ku dhaqan degmada Warshiiq iyo deegaanada iyo tuulooyinka hoos yimaadaba. ugu horeyn waxaa halkaa ka hadlay gudoomiyaha ururka haweenka degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe Marwo Qaali Mire. halkan ka salaamayaa wasiiradda Fawsiye dowladda goboleedka Hirshabelle wasiir dowlaha Sacdiyo tiimka la socda iyo baxda saxaafadda ururka haweenka oo sida sharafta leh iyadana qiimaha badan u ilaaliyay waqtiga ku imaadeen. waa idin salaamay salaan kadib anagoo maanta ka faa'iideysanayno mar walibana aan ka faa'iideysanayno wasaaradda ururka haweenka xuquuqul insaanka ee dhowr mar nagu soo noqnoqotay aad iyo aad aan soo dhaweynaynaa. waxaan rabnaa in Ilaahay ka raali noqdo inaan ka faa'iideysano wixii markaas maxay ahaato haweenka ay u baahan yihiin waxa oo maxay ahaato aan rabno wixii oo markaas oo caqabado oo jiro waxaa la rabaa inaad aamusinaha waxaa loo baahan yahay inaan ka hadalno ma ahan waxaan hor fadhiyo waa haweenkeena Hirshabelle aan ka faa'iideysano degmada waxyaabo badan ka dhaco dhibaatooyin badan ka dhaco kufsiyaal badan waa ka dhacay. marka insha Allah waxa sidii oo lagu dadaali lahay oo loo cirib gooy lahay anaga haddaan nahay haweenka Hirshabelle dadaalkeen aad u dheer yahay. sidoo kale waxa ay dhinaceeda ka hadashay wasiir dowlaha wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowladda Hirshabelle Marwo Sacdiye Maxamed Nuur Sacdiye Burus. dhammaan gabdhaha quruxda badan leh ee degmada dowlad goboleedka Hirshabelle degmada Warshiiq waxaan ka mahadcelinaynaa soo dhaweynta aad wasiiradda iyo wasiir dowlaha iyo tiimka ugu soo dhaweyseen degmada. waxaan idinkugu nimid booqasho wax badanna waa soo wada shaqeynay
tiimam wasaaradda ka socda mar walba way yimaadaan warshiiq waxay haysataa gabdho firfircoon shaqo abuurna loo samayn karo nimcadan ilaahay siiyey ka wasaarad ahaan wasiiraddii iyadoo maaragtay maanta nasiib wanaag nala socoto in baahiyaha gabdhaha ay qabaan la soo gudbiyo hadday jiraan gabdho doomale oo badda ka shaqaysta hadday jiraan si shirkadahaas iyo howlahaas tiim gaar ah oo haweenka ka shaqaysanaya kalluunka loo abuuro domesticadii sidoo kale waxbarashadii farsamadii gacanta in la helo gabdho shaqaysanayo in la helo gabdho ka qaybgalayo nabadda iyo amniga biliiska gabdho yaryar hadda meeshan ka muuqdo in biliiska degmada ay la shaqeeyaan deegaanka maadaama uu nasiib leeyahay dad ehel diin ay degan yihiin dhibaatooyinkii dhacayay inta badan ay ka nabad gashay ilaahay mahadiis waaye. ugu dambeyn waxaa halkan ka hadlay wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowladda Hirshabelle Fawsiye Abuukar Maxamed. anigoo wasiirkiina ah maanta waxaan ku faraxsanahay waxaan u maleynaa waa degmada labaad on imaada tan waraysi Jowhar ay ahayd tanaa ku xigta tan maanta waxaa i keenay inaan horta baahidiina aan ogaado aana idin ilaahay nafta hadduu nagu simo inaan idin fuliyo ilaahay nafta anagoo madaxweynahayga kaashanaya marka waxaa jirto development recently oo warshiq district councils waxaa waaya qoondada haweenka oo governance-ka inaa 30% kaas inaan weli aan sii xoojiyo haddii xildhibaan 21 degmadan ay ka soo baxaysa ugu yaraan 6 gabdhood gabdhaha inay 6 ka noqdaan inta kalena ay ragga qaataan tan kale waxaa waaya FGM waa gudniinka fircooniga waa shayga saameyn gabdhaheena ku leh anaga diinaan leenahay dhaqanaan leenahay laakiinse anagoo diin iyo dhaqan leh oo gudniinkii si dhaqan si diin u samayni karna haddana gabdhihii waa xaqiraynaa xaqoodii ayaan sii xaqiraynaa. madaxweynaha Mareykanka Trump waxa uu sidoo kale ku eedeeyay dhigiisa Ukraine Volodymyr Zelensky inuu sababay dagaalka u dhaxeeya dalkiisa iyo Ruushka. Hadaladan waxa ay imaanayaan maalmo kadib weerar culus oo Ruushka uu ka geystay magaalada Zami halkaas oo ay ku dhinteen 35 qof iyada oo waliba la dhaawacay in ka badan 100 kale. Trump ayaa sidoo kale waxa uu si kulul u eedeeyay Vladimir Putin iyo waliba madaxweynihii hore ee Mareykanka Joe Biden inay mas'uul ka yihiin dagaalka lagu hoobtay ee ka socda halkaasi. Trump oo shir jiraa'id ku qabtay aqalka cad ee Mareykanka ayaa waxa uu Zelensky ku sheegay in uu dagaalka isaga bilaabay waliba waxa uu sheegay in uusan hubin inuu guuleysan karo. waxaad dagaal galaysaa adigoo aan hubin inaad guuleysan karto ayuu aqalka cad ka sheegay Trump. ma bilaabi kartid dagaal adiga oo la dagaalamaya cid 20 jeer labalaab ka weyn adiga oo rajeynaya in dadka qaar ay gantaalo ku soo diraan. waxa uu sidoo kale Zelensky ku tilmaamay qof had iyo jeer doonaya in uu gantaalo iibsado halkii uu isagu wax kaydsan lahaa. xiisada ka dhaxaysa labada hogaamiye ayaa cirka isku shareertay tan iyo bishii February markaas oo ay ku kulmeen aqalka cad. kulankii Feb ka dhacay aqalka cad Trump iyo Zelensky waxa uu kulankaasi ahaa mid warbaahinta iyo duniduba si weyn ay u hadalhayeen. waa hagaaga daawadayaal qodobkaasi arrimaha dibadda ayaa warkayaga caawa ugu dambeeyay oo aad kala socoteen telefishinka S24 xaruntiisa magaalada Muqdisho. anigu Cabdi Fataax Tawakkal ayaa idin warramay aniga iyo bahdii warka isku duwan isma dhaafni amaana Allah.